بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد السلام وقرنتي وحنو ماد علينا يا الله سبحانه وتعالى. marka xigta waxaan sidoo kale u mahad celinayaa bulshada ku xidhan YouTube channel-kayga iyo waliba Facebook page-kayga. waa mar kale iyo muuqaaladani taxanaha ahaa ee caafimaadka bulshada oo aynu toddobaadkan kaga hadli doono gargaarka loo fidiyo qofka gubtay. maxaa yeelay gubashadu waxay ka mid tahay dhaawacyada ugu badan ee ka dhacay guryaha. qof waliba waxa wanaagsan inuu barko habka loogu gargaaro qofka gubtay ugu yaraan si uu caawiyo naftiisa iyo qoyskiisaba. maxaa yeelay daqiiqadaha ugu horeeya ee lagula tacaalo qofka gubtay waxay wax ka bedeli kartaa darnaanshaha dhaawac ayay wax ka bedeli kartaa. inta aanu u gudagelin ee gargaarka loo fidiyo ruuxa gubtay, ugu horeyntii waxaan doonayaa inaan wax ka sheego siday isku saaran yihiin unugyada maqaarka ibni aadamka. lakabka ugu horeeya oo ah kan saabuunta aad ku dhaqdaan waxaa lagu magacaabaa epidermis. aad ayuu khafiif u yahay. sidoo kale lakabka ku xiga asigana waxaa lagu magacaabaa dermis ayaa lagu magacaabaa. waa dahaar aad ugu muhiimsan bogsashada dhaawaca. dahaarkaas waxaa ku jira xididadii dhiigga. sidoo kale waa meeshii ay ku dhammaadaan dareemayaashii neerbihii. waxaa kaloo ku jira qanjirihii dhididka iyo salkii duleelada timaha ayaa meesha ku jira. lakabka ugu dambeeya ee loo yaqaano subcutaneouska wuxuu ka samaysan yahay baruur ayuu ka samaysan yahay. lakabkaas waxaa ku xiga murqihi ayaa ku xiga. murqihi waxa kusii xiga wax loo yaqaano fascia. ugu dambeyntii lafta ayaan ku tegaynaa. sidaas ayay isku saaran yihiin. dhaawaca dabka wuxuu ka imaan karaa qofka inuu ku gubto olol, koronto ama waxyaabo kiimika ah ayuu ka imaan karaa. marka gubashada waxaa loo kala saaraa ilaa 3 heer ayay leedahay iyadoo lagu beesgareynayo darnaashaha dhaawac ama qofka sidoo u gubta ayaa lagu beesgareynayaa. heerka koowaad oo ah heerka ugu khatarta yar waxaa dhaawac soo gaaraya oogada sare ee maqaarka oo kaliya ayaa dhaawac soo gaaraya. waxaana calaamad u ah barar, xanuun iyo meesha oo casaato. waa mid iskeeda isaga bogsato 3 ilaa 7 maalin gudahood ayay ku bogsataa, mana yeelato sumad gubasho ah. heerka labaad wuxuu ka yara khatarsan yahay heerka koowaad. waxaa dhaawac soo gaaraya labada lakab ee ugu horeeyo dermiska iyo epidermiska ayaa dhaawac soo gaaraya. waxaana calaamad u ah barar, xanuun iyo maqaarkoo biyo gala ama bacool. sidoo kale meeshoo casaata. waxaa laga yaabaa inay dhaawaca qoynaada ama diirka ka fiiqmato. sidoo kale markay bogsatana meesha boog ayay isku bedelaysaa. bogsashadeedu waxay qaadataa 2 ilaa 4 toddobaad ayay qaadanaysaa. heerka saddexaad oo ah heerka ugu daran waxaa dhaawac soo gaaraya dhammaan lakabyadii jirka ayaa dhaawac soo gaaraya. sidoo kale murqihii, baruurtii iyo lafihii guud ahaan dhaawac ayaa soo gaaraya. noocan wax xanuun ah ma lahan. waxaa dhaawac soo gaaraya neerbayaasha xanuunka qaabilsanaay maqaarka dermiska ku jira ayaa dhaawac soo gaaraya. that's why marka qofka xanuun uusan u dareemeynin maxaa u qaban kartaa qofka gubtay. gargaarka waxaa lagu beesgareynayaa heerka gubashada. haddii gubashada uu yahay heerka koowaad iyo heerka labaad guriga waa kula tacaali kartaa. waxaan u samaynaysaa 5 qodob. ka fogee qofka gubtay meesha gubashada ay ka timid. waxaa suuragala in gubashadaas ay ka timid koronto. inta aadan taabanin iska xaqiiji si aysan maasada adigana kuu haleelin. ka bixi dharka, fargashiga iyo waxyaabaha cariirinaya meesha gubtay. iskuna day inaad si dhaqsi ah oo tartiib ah aad uga saartid intaysan meesha bararin. ku fur ama ku shub biyo aan aad u qaboweyn meesha gubatay 5 ilaa 10 daqiiqo ama ilaa xanuunkii uu ka yaraanayo. haddii gubashadu ay ka timid kiimika ilaa 20 daqiiqo inaad biyahaas ku shubtid ayaa lagaa doonayaa. looma baahna baraf inaad saartid ama inaad isticmaashid biyo qabow. maxaa yeelay wareega dhiigga ayaa istaagayo. sidoo kale maqaarkana kuleelka ayuu dhumi karaa. ha marin meesha gubatay subag, xeer ama saliid. waxaa ka dhalan kara caabuq ayaa ka dhalan karo. haddii uu xanuun uu jiro qofku waxaa siinaysaa xanuun baabi'iyaa siinaysaa sida paracetamolka ama ibuprofenka ayaa siin kartaa. boogta nadiif oo ku dhaq saabuun oo saar faashad. ha ku dhajinin sharooto oo meesha soo faloocinaysa ama xoogka kasoo qaadayso. sidoo kale waxaa marin kartaa haddaa helaysid bumaatooyinkan basotracin iyo neurosporin ayaa marinaysaa. haddii aad weysid
waxa isticmaali kartaa malab iyo geedka dacarka ayaa isticmaali kartaa. waxay ka qayb qaadataa healing processka, boogta si dhaqsi leh ayay ku bogsanaysaa. sidoo kale waxay ka hortagaysaa bacteria iyo fungi iyo waxyaabaha germska ayay ka hortagaysaa. haddii aad ku aragtid shantan calaamadood midkood boogta ama meesha gubatay, waxaa lagaa doonaya inaad si degdeg ah dhakhtar aad ku geysid, aadan guriga kusii haysanin. haddii meesha gubatay ay ka weyn tahay 3 inji sidaan oo kale, haddii qofka uu ka gubtay wejiga iyo sinta iyo kala goosida, haddii xanuun uu jiro ama qandhe ay jirto ama boogtii oo yeelato ur qarmuun ah. sidoo kale haddii qofka gubtay oo 5 sano ugu dambeysay oosan qaadanin wax teetan ah, haddii aad moodid in dhaawac uu soo gaaray ama guushadu in ay ka weyn tahay heerka 1 iyo heerka 2 ah, uga shakisid inuu dabku aad u weyn yahay. haddii aan u gudagalay darajada 3aad ee guushada, aad ayay khatar u leedahay, kuma daaweyn kartid guriga. waxaa lagaa doonayaa inaad gargaar degdeg aad codsatid, maxaa yeelay waxaa ka dhalan kara caabuq, dhiigbax ama qofka shock ayuu ka geli karaa. intuu gargaarka kaga imaanayo maxaa lagaa doonaya marka inaad usii qabatid biyo oo aan aad u qaboweyn ayaa ku shubaysaa 5 ilaa 10 daqiiqo. haddii waxyaabo kiimiko uu bulshada uu ka imaadana 20 daqiiqo yani ayaa biyahaas ku shubaysaa. mana loo baahna biyo aad u qabow sida hore idinkugu soo sheegay. sidoo kale qofka seexi meesha gubatay kor u qaad oo ka sarmari heerka wadnaha, ka bixi dharka, fargashiga iyo suunka iyo waxyaabaha cariirinaya meesha gubatay adigoo si degdeg ah oo ayar uga saaraysid. ha dilaacanin biyaha gala maqaarka hoostiisa ama bacoosha. sidoo kale waxaa ka baartaa calaamadaha wareega dhiigga sida neefta, qunfaca iyo inuu yani dhaqdhaqaaq sameynaya fiirinaysa. haddii uusan wax dhaqdhaqaaq sameynaynin, waxaa lagaa doonayaa qofka inaad u samaysid CPR-ka. CPR-ka insha Allah aniga ka soo hadli doono, waa mawduuc aad u balaaran. meeshin ku dheh ama xagga hoose ugu wac qof walba ay jeceshahay in muuqaalkan uu ka faa'iideysto. share gareena ma doonaysaa inaad ka mid noqoto asxaabteyda, fadlan subscribe saar YouTube channelkayga, sidoo kale like dhe page-kayga si aad u heshid talooyin caafimaad iyo cashiro cusub oo aan goordhow soo gelin doono. wixii su'aalaha iyo cudurrada aad doonaysid inaad ka soo hadlo, waxaad igu soo diri kartaa email-kan. intaas ayaanu kusoo gabagabeynaya.